بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنونا وشيكا كلا شيكا معنى وين كفر دوية شيكوين كمعناها كفر ديه سوقا يمقالة أي كدعان مركا وحي عن لقرينا واللمان وحي عن ليسو قد بنا ولا إلا هو sheekadan waxay leedahay nin ayaa meel ka shaqaynayay marka saacaddii shaqada uu ka tegi lahaa ayaa xaaskiisu taleefon usoo dirtay waxayna ku tiri noo soo gad moos guriga moos baa ka dhimane caadatan sida dabeecaddu ay tahay dukaan weyn buu ka gadan jiray mooska laakiin maanta wuxuu arkay qof dumar ah oo diif ka muuqato dhibaataysan oo moos ku gadaysa dariiqa dhexdiisa markaasuu wuxuu yidhi bal qoftaan maanta aan ka gato wuu u yimi wuxuu yidhi 1 kiilo moosa ii cabir ama may 2 kiilo ii cabir buu yidhi markaasay waxay ku tiri mooska waxaan gadaa anigu kiiladii $7 baan gadaa $7 baan gadaa wuxuu yidhi dukaankaas weyn oo aan ka gato $5 ayuu iga siiyaa waxay tiri anigu xaaladaydu ilaahay yaa iska oge ma aha qof gadi karta $5 lamana tartami karo dukaankaas weyn waad mahadsan tahay buu yidhi waa ka dhaqaaqay gaarigiisu buu qaatay dukaankii buu tegey uu ka gadan jiray had iyo jeer mooska wuu baxay wuu galay wuxuu la soo baxay 2 kiilo moos buu soo qaatay oo aada u wanaagsan ninkii xisaabta qaadayay buu u yimi wuxuuna yidhi waa meeqa wuxuu yidhi 1 kiilo waxaan gadnaa $10 ninki waa yaabay wuxuu yidhi intaasoo sanaan moos idinka gadanay oo waxaan idiin ahaa camiil ama customer baan idiin ahaa ama zabuun seesaa ay ugu gelaysaan ninkii mudiirka dukaanka baa soo baxay wuxuu yidhi murun meeshaan nooma baahna annaga sicirkeennu ama bricekeennu waa mid go-an marka naga raalli ahow ama ku qaado ama iska tag ninkii isagoo caraysan buu ka soo baxay dukaankii wuxuuna ku soo noqday qoftii dumarka ahayd oo dariiqa fadhiday wuxuu ku yidhi isii 2 kiilo moosa iyadoo warkii hore madaxeeda ku jiraan bay waxay tiri iga raalli ahow anigu ma gadi karo sicir intaa ka yar xaaladeediina waa uga warantay waxay tiri aniga nin baa ii qabay ninkii waa xanuunsaday ninkii hadduu xanuunsaday wax dhaqaalo aan ku daaweyno markaanu weynay dukaan aanu lahayn oo khudaarta lagu gado ayaan iibinay si aan u bixinno daawadiisii cusbitaalka waxna ma tarine ninkii waa dhintay oo ilaahay baa oofsaday saa awgeed anigu carruurna ma lihin oo caruur aan dhalay ma jirto marka waxa weye nolosha baan ku maareeyaa saas u ogowniyaho marka waxba kaama dhimi karo ninkii waa nin hore loo soo dilay oo $10 buu ka yimiye wuxuu yidhi isii 2 kiilo $10 baana ku siinayaa midkiiba waxay tiri aad baad u mahadsan tahay kaa qaadan maayo $10 2 kiilona waa kuwa kan min 7 iga sii ninkii ragga ahaa raxmad baa gashay qoftan xaaladeedana wuu arkay wuxuu yidhi dhegeyso intuu boorsadiisii furay jeebka ka soo saaray ayuu wuxuu siiyey $100 lacagtii moosakana waa siiyey wuxuuna ku yidhi $100 waxaad u qaadanaysaa mooska mustaqbalka aan kaa gadan doono mar allan kuu imaado 100kaasaad ka goynaysaa ilaa uu iga dhammaado waxaana kuu siiyey $100 inaad khudaar badan oon moos ahayn iyo kuwa moosaba ku soo gadatid si aad u heshid dadku ay kugu yimaadaan ninkii isaga ahaa wuxuu kaloo sameeyey way qaadatay aad bay ugu mahadnaqday wuu baxay asxaabtiis raggay wada shaqaynayeen raggay sheekeyneen ayuu u tilmaamay qoftii dumarka ahayd wuxuuna yidhi qoftaas musaacad ahaan uga gata ama kaalmo ahaan uga gata mooska say u noolaato iyo wixii ay haystaba suuq badan bay qoftii heshay ilaa ay nolosheedii wax weyn iska bedeleen oo ay noqotay qof nolol tii hore ay ku noolayd ka duwan ku nool
halkaa maxaa ka fahmaysaa? marmarka qaarkood waxaan jecel lahay dukaanada aadka qurux badanoo nalalka badan ka baxayaano aad iyo aado aan haddana aynan la murmi karin. maxaa yeele sicirku wuxuu ku yaalaa ama baraysku wuxuu ku yaalaa shaashada ayuu ku yaalaa, screenkuu kaaga muuqda, mana ka hadli kartid. marka laakiinse dadka masaakiinta oo dariiqyada wax ku gadaya waxaynu jecelnahay inaynu ku tumanno oo hoos u dhigno sicirkooda oo baktiino. taa marka ha samaynin. haddaadan sida ninkaasu sameeyey aadan kaalmayn karin qofkii kaa liita, adigoo weliba muslimnimo iyo ilaahay ka baq u samaynaya inaa wax ka heshid ilaahay agtiisa, haddaadan wax ugu darayn ha baktiinin oo sicirka ha baabi'inin oo markuu 5 ku yiraahdo ha oranin 2 baan ku rabaa ama 1 baan ku rabaa. adigu ijaarna bixin maysid, waxna bixin maysid, ha oranine niyadda u dhiso. waxaad tiraahdaa intaasaan kaa siisanaya. taasuna waxay keenaysaa dadka masaakiinta inay meel ay gaaraan oo niyaddu u dhisanto oo nolol fiican ku noolaadaan. intaas ayaan kusoo gabagabeynaya mawduucan. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.